arrintan ay reer awdal faysal ku dhaliilayaan ama ay ka sheegayaan been abuurka anu waxaan qabaa faysal waxa weeye ninkii hawd noogu yimi guntii ee intaan nabad raadinayay marnaba odhan maayo faysal iyo qas iyo rabash wada sababtoo ah ilaahay umaba dhalin isagiyo aabihii cali xuseenba oo dad had iyo jeer nabadu ku dadaali jiray faysalla anuu suldaan maxamed ahaan arday ma jeerteen aan lacagta iskuulkii ka bixin jiray waxalla wixii ku soo gardaroodana afula tegi mayna gacantaan ula tegi ummadduna waxa weeye ummad isdhex taalla oo isdhex mari karta xukuumadina dadkeeda ma kala celin karto waxaan leeyahay hadalka la leeyay faysal baa yidhi caddayntiisa noo keena aanu idinla qaadanay hadday jirto laakiin dadka been abuurkiiyo hafaraadda niman salaadiinaantinadee ka xishooda waxaa ku hadlasaan waxaanu leenahay arrintaasi meelka dhac weyn ayay samaysay nin isaguba joogadii madaxweyne u taagan inuu dad isku diro ma suurta geli karta waxaan jirin weeye waxaanu sheegayaa reer awdal war dadkii mutacalimiinta ay reer awdal maaye waxaan leeyahay nimanka salaadiinta ee suldaan cawl fiiqlowigood oo hadda iga horreeyey magacyadooda iyo rag odayaalanka halka bad idinku waxaa halka miidiyaha ka soo qabateen warkan faysal caddayntiisi baanu ka rabno haddii kale xaal gula jooga ayaanu idinku xukubi madaxweynahana waxaan leeyahay muuse sidaa uu cawil u hadlay xaqiiq bay ahayd qoladii dowladda noo timi markaanu hasaasadoodii ka yaabnay nimankii etoobiyaanka ee meesha madaxda ka ahaa ayaanu naga daayay wixii xukuumadda ka socda xukuumadda wixii ka socda naga joojiyo dadkan dhaqanka ee cuqaasha waa in arrinta loo daaya arrintiina sidii way ku dhanwaatay markii madax dhaqameedka loo daayey wale dee nin madax dhaqameed oo fagaaro war ka yidhi caddayntiisaa laydinka raba waxa weeye shicibku meel kastuu joogaba shicibku waa walaalo waa isku mid cidna waxba loo diran maya xaggaana wuu joogaa xagganna wuu joogaa weligoodba sidaasay iskugu dhex jirta puntland iyo somalilan dagaalkan siyaasiga ah ee ka socda tukaraq in shicibku ku milmaan ama madax dhaqameedku ku milmaan maaha shicibku waa sidiisii ka xaggaa joogiyo ka halkan joogaba ganacsigiisii way hore iskugu nabad iyo caana maaleen waa dad isku dhaqana waa dad isku diina waa dad isku dala waa dad ilaahay isxigsiiyey waxaan leeyahay yaan siyaasiyiintu ka faa'iidaysanin dadka shicibkoo waxaan jirin naga ugu ridin halkaa markaan ka gudbo odayaashii dhaqanka ee reer boorame yaan dhagaystay hadalladooda waxaa loo baahan yay markaad madax dhaqameed tahay oo halkii ugu sarraysay suldaan aad tahay waxa laguu sheegay inaad dhegaysataa baa loo baahan yay haddaanad dhegaysan oo waxa laguu sheeguna aad ku dhaqaaqdo ceeb baa kugu filan waxaan wixii ahayn baa imanaya hadalkaa faysal cali waraabe horena waanu dhegaystay haddana dub baan idhi ii dhegaysiiya meel la yidhi cid ha lagu laayo ama jaamacad ha ku jirto ama suuqa joogeen oo aan ku maqlaaya anigu ma jirto taa waxaa laydiga baahan yahay odayaasha suldaan dhawar iyo suldaan ibraahim idinku dee caddeeya caddaynun baa laydiga baahan miidhiyaha idigu yidhi kaa ka maqasheen
caddayn baa laydiga baahanyo maanta odayaashii sulaadiintii reerkaa tihiin dhawaaquna meel dheer buu tagaa faysal hadday taasi ku caddaato annagaa wax ka qabanayn dawlad kale u tegi mayso cid kale u tegi mayso annagaa xaakimaynoo xukumayno suldaankii guud ee beesha Soomaaliland wuu la fadhiyaa suldaan maxamed cabdi qaadir taa annagaa ka go'aan qaadanayna haddaa caddayn weydaan waxay leedahay idinkaale